kulankani oo mid ay soo qaban qaabiyeen culimada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa lagu cambaareynayay dadkii ka dambeeyay falkii naxdinta lahaa lagu dilay Sheekh Cabduqaadir Nuur Farax Allah u naxariistee xilli uu salaad casr ku dukanayay masjid ku yaala magaalada Garowe culimada halka ka hadasha ayaa sheegay in falka uu yahay mid lagu argagax gelinayo bulshada muslimka isla markaana diinteena suuban uusan meel ka soo galin in la dilo ruux muslim ah waxana sidoo kale ay sheegeen in falalka noocaani ah ay yihiin kuwa cadawtooyo ah oo bulshada lagu indhatirayo imaamka masjidka al-sunna ee xaafadda Soomaalidu ku badan tahay Belville iyo qaar ka mid ah culimada kulankaasi ka hadashay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta taariikhda Sheekh Cabduqaadir Allah u naxariistee ayagoo tacsi guudna u diray ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan meel badan laga kala dirayaa tacsiyada anaguna ku daraynaa taasoo ku saabsan geerida xanuunka badneed oo ku timid sheekha la sheegay oo Sheekh Cabduqaadir Nuur Farax rahimahullahu ta'ala sheekhaas oo runtii kamid ahaa culimada Soomaaliyeed ee ummadda fadliga badan ku lahayd ee muddada dheer ka soo shaqeynaysay islaaxintooda ee dacwada ku dhex wada muddada aadka u dheer BBC waxaan ka maqli jiray waxaan u soo joogay laakiin maanta anagu waxaan dhigi doonaa waxaan u soo joognay wax badan u soo joognay runtii oo maanta ay ku mudan tahay in laga sheekeeyo dadka loo sheego oo loo cadeeyo xaq iyo wanaagna kama shaqeeyaan waxa kaliya ay ka shaqeeyaan waa ummadda sidii loo indhatiri lahaa loo baabi'in lahaa horumar iyo dowladnimo aysan ku gaari lahayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa in ummadda firqada yar ee ummadda indhatiraysa ee culimada leeynaysa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaafiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cid dambo Sheekh Cabduqaadir ka dambeysana in ilaahay gacantooda uusan ku ciqaabin ciqaabtii cadaabkana dhuuntooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu geliyo yaan alla weydiisanaynaa aragtidiisa ku aadan xal u helidda ummadda Soomaaliyeed iyo mowqifka adag ay maraysana marka uu rabo aragti ay uga muuqato la quman inay xal ummaddu u tahayna si geesinimo iyo dhiiranaansho leh ay u wajihi jiray eed kasta iyo dhaliil kasta kaga timaadeen waxa sidoo kale kulanka intuu socday la isku dhaafsaday fikrado iyo talooyin ku aadan sida lama huraankay u tahay in bulshada Soomaalida hal meel ugu soo wada jeesan lahaayeen kooxda caadaysatay falalka xanuunka badan ee lagu dabargoynayo culimada qoyaanka iyo guud ahaan indhaha bulshada Soomaaliyeed kulanka caawa halkan ay ku yeesheen culimada diinka Soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu tusaale u yahay sida falalka argagax leh uga soo horjeedaan ee lagu laynayo culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada indhergaradku ah Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa